agaasimaha guud ee bilic socodinta iyo nadaafadda gobolka Banaadir Sharmaarke Cadow Tuuryare ayaa daafuray xarun cusub oo loogu talagalay in lagu maareeyo qashinka laga soo aruuriyo degmooyinka magaalada Muqdisho. xaruntaas oo laga hirgeliyay xaafadda Waxar Cadde ee degmada Hiirwa ayaa ah mid loo diyaariyay howlwadeeno dhowr ah oo dib u habeyn ku sameyn doono qashinka laga soo aruuriyo caasimadda si loo badbaadiyo caafimaadka bulshada ku nool xaafadaha ku dhow xaruntaasi qashin weynaha ah. agaasimaha guud ee bilic socodinta iyo nadaafadda gobolka Banaadir Sharmaarke Cadow Tuuryare ayaa daafur kadib warbaahinta la hadlay. runtiina waxaan aad u bogaadinayaa sida quruxda badan ee shaqada u dhacday annagoo ka duulayna markastaba amarkii duqa magaalada Muqdisho ee ahaa balad nadiifa iyo bulsho nabada. waxaan markastaba u taaganahay inaan kormeerno xarun kasta oo shaqo laga hayo ama ka shaqeynaysa nadaafadda ama bilic socodintaba. runtii kormeerkeenu maanta wuxuu ahaa Muqdisho Waste Management. waxaan aragnay wixii ka duwanaa markii hore. waxaan aragnay waan idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee shaqooyinka u wadaan dhammaan maadaama uu jiro cudur faafa oo dhibaato ku ah adduunyada oo dhan. runtii isbitaalada waxaa la geenayaa dad kala duwan oo qaba caabuqa iyo kuwa aan qabinba. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.